Oktoobar 4 sanadkii 2011 waxaa dhacay qaraxii lagu weeraray xarunta harkaha iyo saamaha halkaas oo lagu qarxiyay arday. Oktoobar 14 sanadkii 2017 waa maalintii ay dadka Soomaaliyeed ay waayeen ku dhawaad 1000 qof oo mar qura ku geeriyooday qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Waxaa ku dhaawacmay ku dhawaad 1500 oo qof halka ay ku burbureen hanti lagu qiyaasay malaayiin dollar. Wuxuu ahaa qaraxii ugu khasaaraha badnaa taariikhda Soomaaliya. Waxaa guri waliba oo Soomaaliyeed gaaray xanuun aan la qiyaasi karin. Caruur badan ayaa ku aabbo iyo hooyo waayay halka kuwa kalena ay ku waayeen xubnahoodii ugu muhiimsanaa. 5 Oktoobar sanadkii 1969 madaxweyne Cabdirashiid ayaa waxaa toogtay mid ka mid ah ilaaladiisa. Sharmaake waxa uu